ramadaan mubaarak barnaamijka addoommadii wanaagsanaa ee taxanaha inuu ahaa qisada labaad aan ku soo qaadanayno waa sayidatu nisaa haweenay fadli iyo karaamo allah siiyey allah subxaana wa tacaala ka doortay haweenka oo idil assayidatu maryamatu binti cimraan ku soo dhowow muuqaalkeena maanta assayidatu maryamatu binti cimraan allaha ka raali naqday waxay tahay tan ugu wanaagsan dumarka adduunka oo dhan maryamatul cadaraa waxaa kale ay gaartay darajada haweeney runsheeg ah sidiiqa darajo si toos u timaada darajada nebinimada assayidatu maryama waa tusaalaha ugu weyn haweeneyda dhowrsoon ee cibaadada iyo karaamada badan leh ee si buuxda isugu dhiibtay allah subxaanahu wa tacaala iskala huraysay wasaqda adduunka si ay u ahaato mid allah subxaanahu wa tacaala dabtiisa u dhowrsata gabdhaheenna iyo dumarkeenna ha ka dhigo kuwa ku dayda iimaanka iyo dhowrsanaanta sayidatu maryama maryama waxay ahayd haweeneyda ugu weyn taariikhda waxaa jira axaadiis badan tilmaamaya in ay jiraan 4 dumar oo quman oo sayidaad u ah dumarka oo idil waxay kala yihiin maryama bintu cimraan caasiya bintu misaaxim khadiija bintu quwaylad faatimatu azahraa bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam assayidatu maryama waa haweeneyda keliya magaceeda qur-aanka si toos ah loogu sheegay meelo badan waxaaba jirta suurad badan iyada loogu magacdaray maamuusoo allah subxaana wa tacaala maamuusaya darteed allah subxaana wa tacaala wuxuu ka marqaati furay dhowrsanaanteeda wuula daahiriyey allah wuxuuna ka doortay dumarka adduunka oo idil wuxuu u doortay mucjiso rabbaani ah taas ay ahayd uurkii ay nebi ciise calayhi salaam ay la gashay iyo dhalashadiisa aabbala'aan culimmada qaarkood waxay xusaan in faracii muuse iyo haaruun ay ka soo jeedaan reer cimraan kuwa kale waxay yidhaahdaan maryama wiilkeeda nabadgelyo korkiisa ha ahaatee hooyadeed iyo walaalkeed waxay ahaayeen reer cimraan iyaga waxaa loo doortay sababtoo ah waxay ka yimaadeen ilmo ibraahim calayhi salaam ilaahay waxa uu u soocay inay xusaan marka uu siiyey sharaf iyo karaamo alcimraan waa qoyska qur-aanka lagu sheegay 3 jeer qur-aanka kariimka ah waxaa ku xusan suuradda alcimraan oo ah magaca qoyska nebi ciise calayhi salaam sayida maryam waa bintu cimraan sida ku cad qur-aanka kariimka cimraan waa aabbaha sayida maryam allaha ka raali naqday maryama aabbaheed cimraan wuxuu ahaa hogaamiyihii ducada reer bani israa'iil wakhtigiisa waxa uu ahaa nin suuban waxaana uu lahaa naag suuban wanaagsan aamin ah adeecda ninkeeda oo adeecda rabbigeeda waxaana allah subxaana wa tacaala ku karaameeyey oo siiyey sayida maryam qoyska alcimraan allah ayaa doortay karaamo iyo wanaag siiyey قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله سبحانه وتعالى بعالم كدرتي آدم عليه السلام يا نوح عليه السلام يا أهلك إبراهيم عليه السلام يا أهلك عمران سيد مريم هويدت وحلا أورنجري حنا بنت فقودة الله كرال نقدي وحي كوكرتي قدس وحي أهيد هبيني توصن عبادة بدن وحال آدم وهيد بتوقت ياس إني أبط كود أهوران وأنا يجد البيت كبركة السنة قدس حنا وحي أهيد مدلس أو عن دلن إلا أكويدو إني دلي كريميدي iyagoo geed harkiisa hoos fadhisa waxay aragtay shimbir quudinaysa ubadkeeda markaasay jeclaysatay inay ubad dhasho allah ayay nadar la gashay weydiisatay iyadoo dhahaysa rabbiyow haddii aad wiil i siiso igu arsaaqdo waxaan nadar ku galayaa inuu wiilkaas beedkaaga barakaysan qudus inuu ka khidmayn doono noloshiisa allah subxaana wa tacaala ducadii wuu ku aqbalay waa ay uuraysatay intay uurka lahayd waxaa geeriyooday ninkeeda cimraan allah ka raali naqday imtixaankii ugu horreysay xanaa ay martay wuxuu ahaa inay rajaynaysa inay dhasho wiil u adeega beedka quduuska ah waxa ay dhashay gabar oo ah sayidatu maryam midaasoo ka fiican ragga markay dhashay waxay tiri rabbiyow waxaan dhalay gabar allahna wuu ogyahay waxaan dhalay ragga lamid ma aha dumarka anigana waxaan u bixiyey maryam waxaana ka magangeliyey shaydaan iyada iyo faraxeeda allah ayaa ka aqbalay nadarkeeda maryama waxay dhalatay iyadoo agoon ah hooyadeedna xanaa way awoodi weysay inay koriso gabadheeda gabowgeeda darteed qof walba wuxuu rabay inuu ka faalo qaado maryama sababtoo ah cimraan allah ka raali naqday ayaa ahaa macalinkooda mid ka baray diintooda wuxuuna ahaa nin wanaagsan waxay ku heshiiyeen in webiga dul istaagaan oo ay tuuraan qalinkooda qalinka ugu dambeeya ee ku hara webiga oo aan la xaaqin waa kan dabaarad qaadaya kafaalo qaadaya maryama qalimaantooda dhan waa la xaaqay waxaa ku haray qalinkii nebi zakariya calayhi salaam waxaa kafaalo qaaday sayida maryam nebi zakariya calayhi salaam isaga ayaa soo koriyey sayida maryam waxay ku kortay ku wanaagtay guri nebi waxay ahayd qof cibaado badan allah isku dhiibtay gurigeedan uu yahay masaajid waxay u go'day cibaadada allah waxay ahayd gabar dhowrsan habeenkii salaad u taagan maalintiina sooman naxariista eebba darteed iyadoo shaqaynin waxaa fadhiga ugu imaan jiray cuno kala duwan mar walba nebi zakariya calayhi salaam u imaado soo booqdo wuxuu arki jiray cuno isaga u keenin karaamada allah uu siiyey darteed iyadana waxay dhihi jirtay allah wuxuu arsaaqaa ciduu doono xisaab la'aan sayida maryama allah ka raali naqday waxay aad ugu go'day ugu kaliyowday
cibaadada alle wayna ka fogaatay dadka wayna dhoorsoontay waxay samaysatay boos qaas ah allah ay ku caabudo waxay qaadatay xijaab waxayna iska jartay isaga fogaatay dadka markaas waxaa dhacday allah subxaanahu watacaala wuxuu u soo diray ruuxdii quduuska ahayd malakul jibriil allah ka raali noqday isagoo iska soo dhigay bashar caadi ah wuxuu u soo galay iyada oo gooni ah markaasay ka naxday markaas ayay dhahday allah ayaan kaa magangelay markaas kadib ayuu u sheegay in uu malag yahay si uu ugu bishaareeyo wiil inay dhali doonto sayida maryam waxay ahayd mu'minad malaa'igta wax ka og markaas ma aysan weydiin arrintaas waxayse la yaabtay arrinta ilmaha waxay tiri sida igu ahaanayaa wiil anigoo ninna i taaban aniguna aan faasiq ahayn malagii wuxuu afuufay jeexjeexa maradii ka soo baxday laabteeda amarka ee basareeyey ay uur ku yeelatay si ay dadku u ogaadaan in allah wax walba u awoodo muddada uurka sayida maryam nabadgelyo korkeeda ha ahaatee culimmada muslimiintu waxay isku raaceen in maryama bintu cimraan in uurka u lahayd sidii dumarka kale taasoo la micno ah inay uurkeeda u socday 9 bilood caloosha maryam ayaa bannaanka imaatay waxaa arkay in adeerkeed la oran jiray yuusuf wuu shakiyey isagoo xaalkeeda og in ay tahay qof wanaagsan oo dhoorson aakhirkii wuu u tegey ku yidhi maryamo waxbaan ku weydiinayaa ee ha iga degdegin waxay tidhi maryama iyadoo aad moodo inay fahmayso wuxuu yuusuf odhan lahaa yuusufow waxaad doontay iweydii laakiin hadal wanaagsan dheh markaasuu yuusuf si dadban ugu yidhi dhirta ma bixi kartaa inin la'aan yacnii mir la'aan geedka roob la'aan ma bixi karaa ilmo ma dhalan karaan aabba la'aan waxay tiri maryama yuusufow miyaadan ogeyn in allah subxaanahu watacaala beerta inin la'aan abuuray miyaadan ogeyn in allah subxaanahu watacaala maalinkuu abuuray geedaha roob la'aan bixeen miyaadan ogeyn yuusufow allah casa wajalla abuuray aadam calayhi salaam aabbe iyo hooyo la'aan intuu oday ayuu ku yidhi waxaan ogahay in allah wax walba awoodo kadib maryama waxay ka tagtay meeshii quduuska ahayd waxay tagtay meel ay dadka ka arkaynin si aanay u soo jiidan indhaha dadka marwa maryam waxaa la soo darsay walaac badan waxaa la soo darsay dhibaatooyin iyo cabsi in sharafteeda loo gafo la aflagaadiyo ayay ka baqday ilaa ay gaartay inay rajayso inay dhimato sida qur-aanka kariimka inoo sheegay ugu dambayn waxay dhashay nebi ciise calayhi salaam oo ka mid ah ululcasmi min alrusul markaasay maryam ahayd mid aad u taag daran oo aan haysan wax gargaar ah waxaa u yimid gargaarkii allah agteeda waxaa aga qulqulay webi wuxuuna allah subxaana watacaala faray inay ruuxdo jiradda geedka timirka si ay ugu soo dhacaan timir ay cunto sayida maryam markay aragtay calaamooyinka iyo daryeelka allah markaasay isdejisay ayaa niyadda u degtay kadibna waxaa la faray inay iska dayso inay hadasho markaasay ilmaheeda yar ka xiisay waxay ku laabatay meeshii marka hore ay ka imaatay ee qudus markaas ayay ku dhaheen qoomkii maryamay waxaad fashay waxaan horay loo arag aabbaha ma ahayn mid shar leh hoodadaana ma ahayn mid xun markaasay u tilmaamtay wiilkeeda yaraa waxay ku yidhaahdeen qoomka sidee baanu ula hadli karnaa mid weli sariirta ku jira yacnii saqiir ah allah subxaanahu watacaala ayaa ka hadalsiiyey wiilkeedii yaraa nebi ciise calayhi salaam oo ku yidhi qoomka anigu waxaan ahay addoonkii alle wuxuu i siiyey allah subxaanahu watacaala kitaab wuxuuna iga yeelay nebi wuxuu iga yeelay mid barakaysan meel kasta aan joogo wuxuuna i faray salaada iyo sakada intaan noolahay qoomkii wejiyadooda waxaa ka buuxsamay ama kaag yaab waxay garawsadeen in sayida maryam wax dembi ah lahayn qalbigeeduna wuu ka nastay dhibaatada iyo hadalka xun ee dadka marka hore ula hadleen waxayna u mahad celisay allah subxaanahu watacaala qur-aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay in badan ka hadlaan daahirnimada iyo dhowrsanaanta maryama iyo mucjisada ay ku dhashay nebi ciise calayhi salaam iyadoo aan la guursan qisooyinka islaamka waxay diiradda saaraan sida allah u doortay sayida maryam oo u sharfay ma jiraan wax calaamado ah oo ku jira qoraalada islaamka ee waaweyn in maryama la guursaday dhalashadii nebi ciise kadib dhaqanka islaamka ilaalinta karaamada iyo dhowrsanaanta sayida maryam ayaa loo arkaa inay muhiim tahay inay dumarkeena cashar badan ka qaataan ee wax badan ka bartaan waxaana loo arkaa inay tahay mid ka mid ah haweenayda ugu wanaagsan dunida tusaale wanaagsan u ah haweenka muslimiinta ah sayida maryam waxay geeriyootay 5 sano kadib markii wiilkeeda nebi ciise calayhi salaam la sarakiciyey samada loo qaaday waxayna jirtay xilligaas 53 sano waxaana la sheegaa in qabrigeeda ku yaalo dimashq allaha ka raali noqday sayida maryam ugu dambayn daawad haddii aad halkaan nala soo gaartay aad u mahadsan tahay si aysan kuu dhaafin barnaamijka addoomadii wanaagsanaa qaybihiisa soo socda nagu soo biir subscribe saar janaalkeena hana ilaawan muuqaalkan inaad like saarto mahadsanid